guys kusoo channelka fadlan subscribe saar like share sidoo kale waxaan laga rabaa inaad saxiib la wadaagtiin mahadsanid maya sida maaha raaj adigu wax ka soo ahay waad igu jeceshahay soo maaha waxaan ka wadaa shakhsiyadayda soo maaha wallahi hadan maalinta saamuudiyo magacaygana ma bedelayn iska bada wax kale xataa kulamaba hadlayn ba muraay ugu dambeyntii waxay noqotay qof iska khayraamada sida aniga oo kale nimrata inanka si fiican baad u aragtay Soomaa garanaysaa boqoradeedii dhageyso inanka fiican xataa hadaad raadiso maba helisidba waxaan dareemay miyaan kuu sheegay haddaan isnaano inanka in la mid Arjun raadiye magaalada dhankayga marka macnaha hadalkaagu waxa weeye inaan wanaagsan baan inantii u helay Soomaa haa waynu helay haddii Amir Bariya ay ogolaato shaqaalaha oo dhan waxaan siinay silsilad dahab ama mid kale soo iibsanaya baan ku dhig mid kale cusub la soo iibinaya dib malaha marnaba laakiin dhalinyaradii maxay u soo degi waayeen maxay ka qabanay ilaa qolkeenanta xasuusna u boqoradayadii inaga waqtigeeni deynamada meynaan is arki jirin ama sawir baa laynaga tusi jiray ama waa laynoo dooni jiray laakiin waqtiga la joogo waxaan ku waliba jiilka nool waxay jecel inaan keenanto inay isbartaan oo ay istabeecad fahmaan oo waxaan ku qofka kale waxa uu yahay si fiican u barto si aan hadhow mashaakilo dhexmarin hadalkaanaani boqolkiiba boqol waa sax laakiin aaniyaan ku weydiiyay ma adiga laftirkaaga doonayay lagu gooriyade macquul miya maanago intan jira maye dhalinyarada hadda joogta ayuun baan ka hadlay waa ku sidee si kastaba ha noqotee anigu waqtiga intaa lageega ma siin karo haddii cid ogaatina Amir Bariya muddo 2 saacadood ay laba wiil qol kaligeed kula jirtay waynu ceeboobaynaa markaa ma fiicna in reerkeena sharafta leh cid wax ka sheegtana anagu marnaba ma ogoli waa ku sidee boqoradaydii waxaasoo dhan wax macna la maaha kadib waxa ugu dhan warqad yar ku qoro xisaabiyadeedna u dhiib ani waqti xaadirkan kaftankaaga diyaar umay waayahay goorman kula kaftamaya waxaan ku sheegay iyagu kaligood ma joogan isagana saaxiibka Bariin baa la socda iyadana saaxiibadeed Suman baa la joogta haddii labada muddo 5 daqiiqo ay ku soo digi waayaan aniga kor ugu tagayo soo dareerinaya marka hore aan ku weydiiyay hadda halkan imanaysa maxad ka waalano soo kaxaysatay horta miyaad garanaysaa isaga haa waan garanayaa waa kii habeenkii gacanteeda keegii ku jiray cunay markii aan kuu sheegin inaad waxba ka qaban weydaad ka baqday waa saaxiibka qaalisabo saaxiibkay raajow kaasoo kale adiga kuma qalmo dadka noocaasna inaad raacdo maaha wuu waalan yahayba maaha kula laafal isagu ma garatay waa runta way adiga shaqaaladan ku taagan iska ilow haddana kale waxaan ku barayaa miradii qasriga maya ma rabo adigu iyadu waxaad ku baratay saaxiibka Arjun laakiin wali aniga igumaad baran ma garatay dhageyso si aynu ugu hubsanay inuu boqolkiiba boqol isu qalanay inagu waa inaynu isku soo degdegin oo inuu kala fogaana adiguna saasaad ila qabtaa waan u malaynayaa soo maaha soo saar raayigaagu maaha sax adigu filimada ma jeceshahay ma daawataa ya waraaba ma kula soo hadlay meeshan khadkeeda xune maamadigi waa soo noqday صعب كتير تقعد بدون ما تكسر وريها aniga ay igu qosli sidaana ay eegin wax qasrigan yeelana ha eegin wax ka soo eegtaaba indhaha ku jabinaysa qumaya xumi oo waliba si fiican isu ilaali imka indhaha isku qabo ilaa jabaya wax kastaaye hadal wanaagsan maalintaada wax ku sheegay anigu waxaan ku dhigay brandi markii aad ku heertay xagga dibadda iska joog marka noo soo gashaba kuwa koobkii waxay jabeen balaa socotaaba tabe gabigaaga tow dhakhtarkaas ku dhalatay muu dhisan yahay soo burbur xilligan iska qosleyaaday waxaan malaynayaa adiga waxba kaasiya mantal baa tahay maya aniga waxba igama si adiga waalan maya adiga waalan adiga maya adiga yow miyaanay ahayn inaan waxu samayno labadeenu aniga waxay la tahay waxa dhexdooda ka dhacayna dabiici iska yihiin inaan dhex galnana maaha
waxay ila tahay inaan labadooda kala celino haddii kale dee qayladooda la maqlaya والله وارنتا labadiina midda kale adigu iyo gabadha shaqaalaha waxaan moodaa in cadaawad hore idinka dhaxayso dadku haddii saas u dhayso dagaalaan cadaawad ka dhaxayso dhow jacayl baa ka dhex abuurma si fiican ku dhamaada jacayla maxaa jacaylkeeni anigu tan 2 daqiiqo laba noolaadeen isu sadan xun hor taagan midda kale adigu waxa habla adduunka inta la jooga miya tan taariikhda ka dhigatay meed qof wanaagsan oo ku shaqeeyo yeelatid war malaad igu leedaysto sad baa tahay ha aniga ku maxaad sameeyay sheeg waan idin bariyaa saahay isu dagaalina labadiina qaylada iska daaya saaxiib noqda haatan waxaan yarana sabtay waxa labada qof ee ilaa maanta la kala karlaa laba kalmadood bay jiray way ku kala dejisay in waxaan u malaynayaa tan taranta karaadi jiray waa tan ya hatta iyada noqoto oo inaan xisaabteedii hore liid gareeya oon xabada yar cusub xisaabta furtaa wax gacantana ku dhiga amiiradeeda yar quruxda badan ee lacagta iyo qasrigaba ee gacanteeda soo gelinaysa barahim qolka waxa jooga qof aan farxadeena ogayn markaa fadlan dibadda nooga saaro ku bariyaa amiiradeedii adigana waan ku salaamayaa mid ogtayna riyoonin isu malaynaya laakiin aad buu mahadsan tahay dhaqso barahim ugu dambeyntii way tageen ilaahda mahadaas kale alla way tageen welibana albaabkaasay ka baxeen inamari banaan ka daba tagnee iminka labadii loo xalkeebay galaan ma laga yaaba in reer aakhiraad noqdeen maxaa dhacay naabalistaji maxaad afkala kalaysaad la qayliyaysaa maxaa kaa galay adiga maxaa kaa galaya qasrigii waanu imanay waanu soo boqonay waanu daawanay fiicnaan lahayda adigoo noo sheegay bartan ka bixilay albaab halka suga in yar suga ninka raaliya labadiinuba waxaad rabtaa labadeena kala lumisaan oo mid kaaga meel ka baxo maya annagu dhinacaas ma aadi karno marnaba waxay la tahay amiiradeedii inaan annagu dhinaca ka baxno ma garatay soo imaad fahmin soo dhawaada oo meeda amira beriya markaa tawaalna shaqaalaha waa baa nagu tiri waa mashquul maxaad ku hadlaysaa maya adeer sidaa maaha waad ogtahay marka hore hablo inay iska xishood badan yihiin iyo dee weliba kasii daran markay qofka isku cusub yihiin oo iska bacdeeda iyo leerhkeeda waxaad dhici karta inay daalan tahay haddaba muhiimada iminka ka hadalo beriyaha markaad aragtay amiiradeeda yar ma qurux badneed ma ku qancisa ma ka heshay dee runtana ka hadal maya maaha waxaan ka wadaa arjoon way fiicanta inaad aabbaha haddada la hadasho waayo isaga laftarkiisana ra'yigiisa ogaano weeyaan sidoo kale waxaan jecel inaan ogaano beriyaha inaad ka heshay iyo in kale ma fadhiisan karaa halkan ha iska fadhiisto waa ku kaa fadhiisaaye igamaad jawaabin su-aashan ku weydiiyey boqoradeediyey amiiraddu waa ina yaro qurux badan aada u fiican oo akhlaaq fiican laakiin mushkiladdu waa aniga dhankayga weeyaan waxaan ka wadaa anigu xilligan taagan diyaar mayhi markaa waxay ila ficnaan lahayd inaad waqti yar dheeraadna siisaan sidaan labadeeda isku fahanno oon isku dhex galno oon dabeecadaheega iyo wax kasta waani baraya fursadda qaaligaana siiya ha adeer waa caadi waqti waa ku siinaynaa weliba in badan daynankaygiio nasiib badba leedahay mar haddii aabbihiinantuba uu kula garab taagan yahay inaad daynantii la kulanto aad waqti wada qaadataan dee annaga waqtigayga waxaas ma jirin oo haddii ay jirtona dee wallaahi tanbaa kasma hadalkaa way ku saxsan yihiin boqoradeydiyey waqti yar inaan siinana waa loo baahan yahay iyaga ha wada fadhiistaan si fiican ha isku bartaan maxaad ku hadlaysaa amiirkaygiio kollay inagu beriis ku guurin mayno dee keliya waxaan doonaynaa inagu inay isfahmeen oo isqanciyaan oo iska helaan oo keliya intaasanu fadhinaa haa waa sida markii horena sharcigii labadiina idiin dhexayn lahaa ee aad isku fahmi lahaydeen qolka beriya ayaan sii geeyay mar hore waxaa anagana noo wanaagsan idinkana idiin wanaagsan
inaad wuxuun isku raacdaan kabacdina saa ugu dhaqsaa badan aan isuu kan guurino. خبر بسرعة أكيد. laakiin ra'yigaaga noo sheegdee. Nimrata hadda waad iska tegi kartaa laakiin marka xigtaad halkan imanayso adigoo reerkiina la socda oo arrin isku hagaagsan la socda yimaada ma fahante. Mitali hee maru darawalka gaariga diyaari ku dheh. furaha gaariga i dhiibe. بريم فراش غاري غودي mana hayaba dee furayaashii سوني غاري فراش gacanta ka saare ku dhibay laakiin ayaa dee gaariga waday dawaa wada laakiin saxab adiga furash ku dhibay arwani ku soo dhiyay markaan guriga nimiye naga daamuran waxaas iska dhacdaa waxaa dhici karta inaad meelahan furu idin kaga dhacay marka haddaan shaqaalaha u dirayna iyaga raadinaya helaya mahadsanid inta la helayna mid ka mid ah gawaadhideeda raacaysa. boqoradaydii adigu miyad ilowday in gaariyada qasriga yaalay oo dhan aad adigu dirtay. dhamana boqoradeedii baska waa iska siraacna muxuu toqonkani anaguna waxaanu doonaynaa fursadaan ku shaqaamsano amiirada cusub isaguna uu sii cararaya xaqu ku socdaa talo macquul maaha arjuunow maadaama anaga martinood tihiin inaad bas ku noqotaan caqligal maaha sharafteeda meel nagaga dhacaysaan markaa xataa haddii aad imika bas raacdaan waa xili dambe gurigii gaari maysaan boqoradaydii ka warantay inamada caawi guriga ay seexdaanba haddana xaggaaga dhib ka ahayn weeyaan marow. sidoo kale mar dhowad ayuu noo sheegay arjuun inuu waqti badan uu u baahan yahay ay isku fahmaan amiirada siday isku soo dhexgeli lahaayeen isla markaas sida isla saamqaadi lahaayeen. marka arjuuna waqti badan baad haystaa caawo dhamad haystaa beri baad haystaa sidaad u sheekaystaan u qosashaan isku fahantaan xataa aad isku jeclaataanba miyaana sidaa ahayn. haa boqoradaydii hadalkaagaas waa sax. Mitali dhaqaaqo wiilasha hadda boqolay seexdaan u diyaari. waayahay marweyne marayninkuna waa maxay waxaa sabaysa harxi maxaad u dalbatay inay namada guriga joogaan. oho istaji xabiibi adigoo ka dhashay reer boqortooye haddana siyaasadda maba taqaanidba iyo si dadka loola dhaqmaba. maxaa tiri siyaasadda xaaladda arjuun waxay ila muuqatay markuu doonayn inuu qasriga ka baxo inaanu doonayn berya aanu doonayn xataanu dib u arko. oo haddii saa noqdo mushkilad baa dhacaysa. markaas teji markuu arjuun waqti u helo berya iyaga isfahmayo isjeclaanaya baan kuri markay isku daa labadooda baan kuri u kala baxa kadibna ma diidayo. waaw warkan oo kale weligii ma arag waxaa qolkan shidani war miyaad seexateena maxaad ogolaatay meesha seexano midda kale waana brito salaada subax hore aan jarmaadnaa oo aynu kalaana oo xabsigan ka baxnaa anigu waan caajisanahay waxaan dareemayaa diiqad iyo madax xanuun joog midda kale Bremo furaasha gaariga aadaan ku dhiibay ee ma hubtaa xageed geysay ii sheeg aadaan ku weydiiyey hadalkaagu waa sax oo furayaasha aniga haya sidaad u aragta haddaad imika ma qaadato oo maxaad ku hadlaysaa haddaaba haysa furaasha maxaad meesha bas noo seexisay ii sheeg waxaa waajiba inaan ogaado kaadhkaan tuurayo iga gubtay iyo kaan xafidayo waa waajib oo macnahana macnuhu waxa weeye waxaan rabaa inaan muddo dheer joogo qasrigan walle oo qasriga haddaad doonto weligaaba joog laakiin aniga maxaa badaha geegeliya bari waa nacasi oo laga nacasaysanay waxba ma fahmaysid waa adigii badgeli gaaray anigu baa ku badbaadiyey midda kale waxaan dareemayaa in qasriga wax weyne ka qaldan yahay waxbaa jira waniga maxaa kaa siiya madami baaras mooda adiga horta marka hore amiirada xun caqligayga aan qaadanayn ayaa meesha joogta shaqaalaheeduna waa mid ka waalan caqli aan lahayn oo natina hadalkaagaas waa sax waana kaan doonayo inaan ogaado oo aan kashifo ta ilaahay caawa qoray inaynu qasriga joogno waa xog kastoo inaga dahsoon aynu ogaano haa walaal Bremo waxaad doonto samee anaa ku ogol laakiin waxaad iska laasata xuma shaqaalaha maagta anu ma bogin waxay doontay sameynaysa ka surtoowa waa qof wada weeyaan ii sheeg beryahaye miyaad wax maqlaysaa ma waxaad ka wadaa boqoradiiba soo socota namaya duqanyay qalbigayga dhigeyso inuu garaacmayay in kale bal dhigeyso in hataa sanqadh yar ay baxayso oo yaa qalbigaaga sanqadhiisa bixiyey dhaqso ii jawaabtee arjuun soomaan ninkani wuu waalan yahay
adiguna wuu ku waalaya waxay la tahay berri subax ina dhakhtarku geeyo siduu kuu baadho adna sidoo kale waa inaad raacdaa waayo adiguba waad iga daran tahay oo waayo markaa waxaa halkaa ka cad in adigu laftarkaagu aad bariimka ku waalan tahay soomaane aniga waxa ila tahayba raajkayga inaanu kani ahayn waayo isbeddel ayaa ka muuqda maaha raajkii aan kula kulmay taallada cas ee isagu xiisaha iyo xamaasadda badan aniga ii hayay wuu isbeddelay qof kale ayaabaad moodaa maaha raajkaan aqaanay waxaan u malaynayay inuu qalbigayga aada ugu dhow yahay laakiin hadda waxaan dareemaya inaan agtiisa waxba ka ahayn waxaan u malaynayaa wuu igu ciyaaraye sidaa darteed agtiisa deganaansho kama haysto war weli maxaad ka fikiraysaa kalaas maxana wasaq dhexe naga soo jiifto arjuun wax hurdo la idhaa ma jirto waayo shaqaa inoo taalla war maxaa tiri qasrigan iyo saqda dhexe miyay shaqa taallaa idhigaysa arjuun qasrigan wax weyn ayaa ka khaldan waxbaa ka khaldana haa waxaan dareemayaa qasrigan inay waxna xaqiiqo yihiin waxna aanay run ahayn waxbaa ka khaldan waxbaan saxayn waxaasoo dhan maxaad uga jeedaad ka wada bali anigu ninan kuma fahmayo sidaa darteed waxay wanaagsan inaan iska seexdo waayo dhafar samee waxaad doonaysa adigu hurdaa war haddaad caawa seexato nasiibkii adduunkaaga ugu weynaaba caawa ku dhaafaya alla way dhaafaya haddaad doonayso adigu iska seexo aniguna waan baxayaa oo waxa iga qarsoonaya soogaanaya ama nabadeena waxaa inoo fiican inaynu israacno anigu halkaa ka kici maayo waan loonaya waan daalnay ooba seexan waar soo bax inkaarigu saasay dhan ku tahay ka bax haddaba imika waa inaan koraa arjuno waxaa saa u samaynayaa amiiradda dhabtahay tay tahay inaan ogaado oo keliya hadday noqoto taynu aragnina waa inaan u howlgalaa sidaan shabaqa ugu soo ridi lahaa samraan ka waran waan iska dareemaya waana ogaa inaad waxaan kuli saq dhexeeya imanaysa aniga laakiin waxaan u malaynaya inaad meeshan joogine oo marka aniga inaad aragto maad iman haa waa runta inaan adiga ku arkaan u imi haa sheeg maxaad ka soo doontay qolka amiiradda hore dee waxaan kaa eegay xagga hoose dabeeto markan kaa waayay waxaan is idhi xaggii sare iyo qolkii amiiradday joogtahay bal ka soo eeg dabeeto saan ku raadinayay halkan baan imi macquul ma tihid waxaan kugu yidhi xasuustaada way wanaagsan tahay waabaad iga yaabisay dhaqankaaga xataa iga yaabiye saa daraadeed waad xasuusantay kelmad kastoo aan ku idhi maxaa ka wadaa jooja filinkaad matalayso marka inaan intuu sallaan soo qaato uu naftiisa khatar geliyo weliba inan darteed qolkeedana ugu yimaado ii sheeg taa macnaheedu maxay noqonaysaa aniga waxay la tahay raajow inaad iska hurdo tagto aniguna waan loloonayaa habeen wanaagsan baay alilaahayo waxaasoo tacaba waxaan u soo gelayay shaqaalada xunna arka tacab qasaar dhalay maxaan sameeyaa haddaba alla maxaan sameeyaa
ina mari wayna haysaa ka soo waar istaaga maxaa meeshan ka socda waxa u balanaya inaan hurdada ku socdo habeen wanaagsan maxaa tirana hurdaa way dhici kartaa inaan socdo aniga hurda arjun maxaa meeshana keenay yaa war adiguna arjuno maxaad ka qabanaysa halkan anigii soo dabagalay wuxuu ogayay inaan dee iska dheeralowsoodo aan iska socdo deetana qabuus lahaade si aanu geedahay waxa u jirin haade si aanan meelaha uga dhicin qolkaygu way fiicanta inaan ogaano inaad hurdada ku socoto intaanan hawlba kula gelin marwo hadalkaaga waxaad ka wadaa soo maaha mid hurdada ka socda oo waalan inantaada mirada u guuri maysid soo saa maaha naga aamo gudagariire boqoradaydii ma waxaad u malaynaysaa in adiga laftaadu aanad hurdada ku soconood marnaba dheelalow socontee yaa berri markuu waagu baryo ayaad wax kasta ogaanaysaan iyo go-aankaygu waxa uu noqon doono iminkana waxaan idinku amrayaa inaad qolkiina ku noqotaan oo aad seexataan taasina idinka ayay idiin wanaagsan tahay wiilashow suga waryaa mid kasta qol gaara ayuu seexanayaa sidaan isu arkin una soconinta idinkoo hurdayle hurdada ku socotaane si aydaan dhaqankan xuni aad wadaan aydan mar dambe ugu celin hadalkayga hore ma fahanteen idinkuna